السلام عليكم waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed magaceeyguna waa Amran Xalane waxaan ahay hooyo dhiban oo gabadeedii ay ka maqan tahay waxaan iga maqan gabar yar oo aan qaan gaarin xarun ay wax ka baranaysa ayaa waxa ka kaxeeyay gabdho kale waxay geeyeen waxaan ku raahdaa gabdhihii waxaan u baareen waxaan soo ogaanay in gabdhihii ay u gacan galiyeen ciidamada madaxtooyada ilaalada madaxtooyada markaan soo ogaanay waxaan u nimid CID-da oo aan u sheegnay arintani markaan u sheegnay waxay CID na dhahan waa idin baadigoobeyna gabadhiini marka sidii gabadhii loo raadinay wax CID iska daba marayn iyo iska daba wareeg markaan ku daalnay xildhibaano waa u geynay dad kale sarsare waa u geynay nimankii marka ogaanay in ciidamadaas oo ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin waa la soo xiray maxkamadii aan tagnay ciidanka qalabka sida waa la soo xiray labadii nin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhiini ma tahay ha $2,000 haliisiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midkii gabadhayda lambar 4 gaari uga qaaday gurigiisii geeyay marka gabdhihii gabadhayda kaxeeyay laba kamid ah CID soo xireen labadiina damaanad ayay ku sii daayeen marka CID waxa dhacday markaan ir CID gabdhihii maxaa damaanad ugu sii dayseen xog ayaan ka helnay gabdhihii damaanad adagaan ku sii daynay gabadhaadiina waan ku raadinayna ay ku dhahan waxa dhacday marka gabadhaydii waxayna tuseen CID message ay u soo dirtay gabdhihii ay sii daayeen gabar kamid ah gabadheedii Ingiriis waxay ku soo qoraysaa heblaayo ninkii aad igu daba dartay inuu kufsado isku day marka CID waxaan ku islaanimo ma jirto miya Soomaalinimo ma jirto miya muslimatiin miya gabadhayda u jeedin message-da ay soo diraysaa la leeyahay qol jingada ku jirta gabadhayda la ii raadiyo waa raadinayna gabadhaadi marka waxa dhacday in xataa mid kamid ah xeer ilaaliye maxkamadda khayr Allah si uu nacaawiyay nolol yimid CID-da uu yiri maxaa idinka qaldan walaalayaal dad islaam Soomaalitiin gabadhan maxaa u meermeerinaysan arinteed wax waad ka ogtihiin fariimii xataa ay isdhaafsadeen gabadhi kaana ama gabadha damaanada aad ku sii dayseen oo gabadha fariimahan ay u soo dirtay kaana waa nimankii way xiran yihiin wixii waa ku cad yihiin gabdhahaas u baahana may waa keenayna 3 week hana 3 bir hana la siiyo 3 bir waxay dhashay 3 week marka aniga xaal mastuur wax waa ku soo waayay maxaan ku raa sharci wax waan ku soo waayay gabadheeda qurbahan ka keen waxaan islaa wadankaaga sharci iyo waxa kala dambeyn baa ka jirta wax baa ku helaysaa wax aan ku helay midna ma jirto dawladii wadanka ka talinaysa ayaan xaq darro kala kulmay cadaalad darro kala kulmay waxaan dad muslimiinta ah Soomaalida ka codsanayaa in gabadheedii la ii keeno khaasatan madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanayaa maadaama ciidamada madaxtooyada ay yihiin wax gabadheeda xoog ku haysta lacagna soo weydiinaya ma burcad badeeda gabadheeda marka la leeyahay $2,000 la keen 2,000 xataa anagoo u ogolo dhahan waa idin siinana gabadhi keena waxa dhacday inay dhaheen gabadhi hadana ma naqaan meel kuma ogin marka waxaan dawladda sharafta la ka codsanayaa khaasatan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban karta kiiskan inay gabadheedii nolol iyo geeri mid kuma hayo in la kufsado in la dilo in badda lagu rido warka ma hayo hadii islaamnimo iyo dadnimo ay jirto gabadheedii ayaa u baahna sababta maanta in la shareerka aan u xirto waxay tahay cabsi darteed waayo markaan ogaanay ciidamada ilaalada madaxweynaha inay kiiskii faraha la gashay midkii sawirka soo tuuray mid kamid ah oo gaashaan la dhaxaa ii hanjabay wuxuu yiri hadaad arintayda warbaahinta la tagtaan aad la tagtid waxa waa ku dilaya marka waxaan haynaa cadeemo badan waxaan hayaa codad waxaan hayaa video waxaan hayaa warqadihii maxkamadda iyo intii kiiskayga uu soo maro dhan ayaan hayaa marka wax walba cadeyn ayaan u haynaa marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa aniga hadda wixii dhan in la soo bandhigo raali kama iig marka u horeysa waxaan rabaa dawladda inay arinta wax ka qabato waxaan hay aniga gabadha maqan ayeeyadeed gabadha dalka la keenay waxa la rabay dadkeedii dalkeeda iyo dhaqanka Soomaalida inay barato waxa dhacday meel ay quraan ka baranaysa in gabadha ka wadeen in ay gabdhihii la galeen mususka madaxtooyada sida la sheegay hadii aan dacwo tagnay oo aan tagnay CID-da 2 bilood ay iska kaay daba wareejinaysay wax ay noo qabatana ma jiraan
waxaan ka codsanayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya annagoo calanka hoostiisa joogno in gabadheeni 2 bilood wadanka dhexdiisa lagu haysto oo xoogna looga haysto ayaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa in arrinta loo istaago inaan arrinta la yaraysan in gabadheeni geeriyo nolol meel lagu sheego ayaan ka codsanayaa dawladda u dhaaratay danta iyo dalka Soomaaliyeed ee kitaabka gacanta u saartay arrintaas idinka idin sugaysaa waa inaad wax noo qabataan gabar baa naga maqan xanuunkeeda ay leedahay ummadii maqashaa ka naxaysa annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay sidaa daraadeed waxaan ka codsanayaa madaxda sharafta leh arrinta inay soo farageliyaan oo ay wax noo qabtaan oo gabadheeni geeriyo nolol mid un meel lagu sheego wabillahi